jirtaa qof beri nolosha aad soo wada qaybsateen ama aad xidhi wada lahaydeen oo aad kala tagteen ها وجهتها أبو وضع هذا إيميل كذا ما هيو لمبر كذا ما هيو واحد شعلان لا دي مغلسة أمريكا يدبيشتو إنه يلصق هذا شو أو 4316101 وني قلص هذا شو اللي به ma jirtaa qof beri xidhi aad wada lahaydeen laakiin waqtigoodii kale ها وجرا ولا fariin baad qofka halkan uga reebaysaa fariintaad u reebaysaa maxay runtii qofkaas waxaan leeyahay oon ku xiisaa run ahaantii haddii ay ku soo gaadho fariintayda kaamana maarmi karo aad baan ku jeclahay nuur caamir aadan balaya oo channelka secretary ma ku dhawe su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa tahay koornaysaa ma jirtaa qof saalaad xidhi wada lahaydeen laakiin imika aad kala tagteen ha wajh ha fariin baad halkan uga reebaysaa fariintaad qofka u diraysaa hees ma u diray hees ha miyaan ku dhuftaa cashaqaaga awgii cirkaa soo danyeeli dhulku carariye soo qabo inta taye waxba ha cunin cidladana ku noolow ma garanaysa taasaan u diray markaa ugu diraysaa heestaa maxay macnaha cidladana ku noolow waa iga tagta aniga ma garani halkaagaas kaga noolow ma garani dee annaa cashaqaaga awgii markaasaa igala maqnoogo laakiin cidladana ku noolow waa ku sugaya macnaha deeg haa inaad mar un dee soo dhaqaaqdo ma garanaysa inta waa maahir deeq axmed kabadhe oo ku magac dheer maahir jacaylo jacaylo kusoo dhawo channelka secretary su'aal tijaabo oo dhanka arrimaha bulshada dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxa tahay koornaysaa ma jiraa qof aad hore isu jeclaydeen laakiin se imika aad kala tagteen alla yaa ciise ku jira su'aasha ku weydiinay marka waxay tahay waxaad fariin u reebaysaa oo aad u diraysaa qofkaas noloshayda hore aan baaq u diraya doorta noloshayda hore iyada cidlaysa ma garanaysaa marka waxay iga kasbataan u diraya marka anu waxaan leeyahay kaa baxay mar baan ku aqaanay qasil baan kaa cabay qaraar badan yaa lagaa garan inaan ku aqaanay intaasaan u diraya anu saantayda hore waqtiga tagay oo salaamade alla yaa ciise marka yaa ciise aad mahadsan magacayga walaal axmed baa dhahaa axmed kusoo dhawo channelka secretary walaal waan ku dhawey su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxay tahay koornaysaa ma jiraa qof aad tusaale mar isjeclaydeen ama aad xidhi wada lahaydeen oo imika aad kala tagteen nuwarno way lahaydoo way jirtay dabeetana waxayd dee inaan wada shikan jirnay markaa imika waa la guursadayba oo reerkooda ku yidhi ducaiyo habaar kala dooro markaa ninku dabaduu ka yimi markaa ducaiyo habaar kule dadka masaakiinta waxay yeelaya oo lagu odhanaya kala doorta markaa inantii waxaan isla weli hala soo furo islaa carmarkeeda fariin baad markaa doonaynaa inaad halkan aad u dirto inantaa marka fariinta aad u diraysaa maxay tahay tusaale waxaan la odhanayaa ninkaaga ha ku dheganow yaa hadduu ku soo furwaayo xaasid noqdo kaa soo fur waayey haddii isagu ha ku haysto yaa kuma rabee ayaan leeyahay anigu adna ku soo dhawo channelka secretary waan ku dhawaadeen su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxay koornaysaa ma jirtaa qof aad xidhi wada lahaydeen laakiin waqtigoodii kala ها وجرا su'aashan ku weydiinay markaa waxay tahay fariin baad qofka halkan uga diraysaa fariin baad u reebaysaa fariinta aad u reebaysaa maxay tahay fariinta reebay waxay tahay maadaama waqtigu ina kala kaxeeyay adnaad hawlahaaga iska qabsatay anna hawlahayga qaran waxaan ku leeyahay ruuxdayda iyo maanka uma roonid ruuxdayda iyo maanka uma roonid karaystay kuma raabe hay raadsan hadba soo rogaal celinta ha ku raagin oo raalli baan helay rara awrtan leeyahay ma garat wixii hore ka diga rago sababka fariintaasaan marinayaa sababta markaa heesta u dooratay aad ugu qaadaysaa maxay waxaan ugu qaadayaa xumaanu isagu keenay dartii marka waxaan leeyahay hore u soco cabdirasaaq khaliif baa dhahaa cabdirasaaq kusoo dhawo channelka secretary aad baan ugu soo dhaweey walaal su'aal aan dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxay koornaysaa ma jirtaa qof aad beri xidhi wada lahaydeen laakiin imika aad kala tagteen haa way jirtaa marka su'aashu waxay koornaysaa fariin baad qofka halkan u reebaysaa fariintaad u reebaysaa maxay waxaan u reebayaa dee qofkii waqtigunbaa dee waxaan ku isku keenay waqtigunbaa nagala kaxay soo maha marka waxaan leeyahay dee qof baa dhinto oo tagay waxaa taraysaa yaraa waxaa taraysaa yaraaba marka iska socotaba u dooratay maxay tahay yaa dee qofka hadduu ku xumeeyo laga yaabo in adiguna aad xumayn kartid dee markaa wixii taraysay baa yaraydba jacaylka saacadda laga bilaabo wixii taraya yaraa
walaal magacaygu waa farxaan cabdishiid yuusuf xasan oo ku magac dheer farxaan al-ashqaawi. farxaan al-ashqaawi kusoo dhawo channelka Secretary su'aal jawaab oo dhanka arrimaha bulshada oo dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxay tahay koonaysa ma jira marka hore qof aad hore isu jecleedeen tusaale oo laakiin imika aad kala tagteen oo xidhiidhooda lahayd haa wuu jiraa. su'aasha markaa ku weydiinay waxay tahay waxaad halkan fariin uga diraysaa qofkaas fariin ayaad u diraysaa dee qofkaas horta qof aad igu weynaa baa laakiinse imika kala dhammaanoo dee kala hawl yaraysanay haa markaa imika anugu u calacaali maayo laakiinse laba erayo dantayda baan odhanayaa waxaad tiraysaa yaraa tagtay ayaa ku timayba aniga meel marani may buuxinayde markaa imika waxaan leeyahay midkaa muhiimsan baa joogta booskii ku tala gasho inaanay dee jiljileec noo jiljileec markaa waxaan leeyahay dee piece of haa aniga ayaan la xasan axmed balayaa ayaan ku dhaw channelka Secretary walaal su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxay koodhanaysaa ma jirtaa qof aad bariis jecleedeen oo waqtiga iyo waayuhu idin kala kaxeeyeen oo imka ka maqan way jirtaa hadday doonto way dhici kartaa way jirtaa su'aashan ku weydiinay markaa waxay tahay fariintaad halkan uga reebaysaa qofka aad u diraysaa maxay tahay tusaale waxa weeyaan qofkii ama kalgacaylkeedii oo aan kaa dhammaanin ayaad u tilmaamaysaa waa caadi waayahay anigu dee waxaan ku idhi kalgacaylkii berigii dee wiiga dhammaaday aniga waxaan ugu noqonayaa ma jirto hay sidaasaan dee asalaamu calaykum ku odhan sababtu dee waxa weeyaan kalsoonidii hore way dhammaatay iminka mid dambena loogama gudbin weli lama helin xalkeedii wala magacayga waa nimco walaal kusoo dhawo channelka Secretary waan dhowahay walaalo su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinaynay waxay koodhanaysaa ma jirtaa qof bari xiriir wada lahayd laakiin waqtigoodii kala keen haa wuu jiraa walaal su'aashan ku weydiinay markaa waxay koodhanaysaa fariin baad qofka halkan uga reebaysaa fariintaad u reebaysaa maxay fariintan halkan uga reebaya waxay tahay oo fariin xiiso xambaarsan run ahaantii qofkaas oon kala fogaano waqtiguna uuna kala kaxeeyey wadanka dibadiisana wuu jiraa runtii qofkaas waa qofaan in badan u baahnaa in badan aan jeclaa in badanna aanan ka maarmi karin run ahaantiina meel dheer igaga yaala welina aanan helin bedelkiisii runtii qofkaas waxaan leeyahay waan kuu xiisay run ahaantii haddii ay kusoo gaadho fariintaydu kaamana maarmi karo aad baan ku jeclahay la'aantaasna adduunyadu waxay igu noqotay wax yar xataa burca laba xaafadood noqotay wax kale iska daayo run ahaantii waan kuu baahanahay soo laabo waana ku jeclahay waxaan filayaa fariintaas inay gaari doonto aad badmaas hayo walaalada mudan igana gaarsiiyaa maxamuud axmed maxamuud kusoo dhawo channelka Secretary waa ku dhawahay walaalo su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxay koonaysaa ma jirtaa qof bari nolosha aad soo wada qaybsateen ama aad xiriir wada lahaydeen oo aad kala tagteen haa way jirtaa su'aasha markaa daynu dhaadhan waxay koodhanaysaa qofka fariin baad halkan uga reebaysaa fariinta u diraysaa maxay fariintaan u diraya waxa weeye maasada anigu aan sameeyey oo iyada ku khasaysaa waxaan leeyahay sabsan hadaladeeda iyo soodkeeda wacan baan ka seexan waayo hurdadaan ku silalaa anigoo sugayo subax iga saaso subax ay u socoto sanac gaala keetiye baabuur salaxan bay safka hore ka raacday Soomaaliya idilsiga ay ku dhaafto sabab joogtaa socdaalkii dambeetana Suudaan ku maqalay waxaan baryayaa ilaa socota adiga sababtii dhexdeeda iyo jacaylka sideen intaas faraya dilay ka dhigo marka inantu way taariikhteen inantu waxay joogtaa Suudaan imika hay saasan jeclay ma wada hadashaan mise xiriirkii ma wada hadalo emailkeedana ma hayo lambarkeedana ma hayo waxaan jeclaan lahaa hadii ay maqlayso markaa ay dhageysato inay la soo hadasho oo 4316101 waniga la soo hadasho waliba aad baad maasantaa idinka mudan bashiir cabdi maxamuud balayaa bashiir cabdi kusoo dhawo channelka Secretary waan dhawahay su'aal dadweynaha magaalada Burcaan weydiinay waxay koodhanaysaa ma jirtaa qof aad bari xiriir wada lahaydeen ama aad wada noolaydeen oo imika aad kala tagteen dad waa way jiraan qof la xiriir wada hanjin laakiin imika daanan wada wax xiriir naga dhaxay marka su'aashan ku weydiinay jawaabadii waxay koodhanaysaa fariin baad qofka halkan uga reebaysaa marka fariintaad u reebaysaa maxay anigu fariintan qofka ugu reebiyo waa horta waa dee wax horta anigu dareenkayga waxaan dee la koobi karin aad iyo aad daaniga farxad markasta way waayo qofkii noloshiisa soo wada marnay dee magaranaysaa iyo dareenkii hore isku gaay jiray aniga dee haddii qofka waqtiga kala kaxay laakiin aniga waa halkiisa ma garatay anigoo sidii hore haddana usu haynoo dee magaranaysaa maanta wada joogo laakiin aniga dareenka wallahi jawi aad u wanaagsan baan dareemay laakiin
fariinta wallaahi anigu dee haddii maanta aan qofka haddeen is arki lahayn inkastaanu kala fognahay waxaan dee halkan aad iyo aad baan uga salaami lahaa haa kowgii waxaan adiyo goorna waxaan haddii aan kulmi lahaana waxaan noon lahaa dee sidii hore ku soo noqon balle ka war laakiin dee waanan helaynba waa qof waddan dheer buu joogaa haa wax telefoonna kama hayo wax ma garanaysaa marka adigu shucuurahayga iyo waxaan dareenka dareemayo aad iyo aad bay u wanaagsan tahay kowladii insha allah haddaan arkana waan soo dhaweynaya salaan jacay sufaan saleebo wal ku soo dhawo channelka Scratch-ka ku soo dhaweey su'aal dadweynaha magaalada Barcaan weydiin waxay ku oranaysaa ma jirtaa qof aad beri nolosha soo wada qaybsateen oo ama aad xidhi wada lahaydeen oo aad kala tagteen haa waa jira su'aasha marka haddaynu dhaadhacno waxay ku oranaysaa fariin qofkan halkaa uga reeb fariinta waxa weeye tagtayo wax lama tegin haddaad timaadidna wax lama adiman saasaan horta ku oranay sababtaad erayada u dooratay aad ugu tiri maxay tahay de waxa weeye qofku dee isqanciyo isqaadqaada marka wuxuu yidhaa aad adigu laaban tahay howle dee markii dambe markaan culuurina waxaan ku yidhaa iska ka eriyena isagaa wax xumaanta bilaabay dee waxa weeye haddaad tagtidna dee waxbaan lama tegin waxba iima tarayn haddaad joogtidna dee waxba ma taraysidii xakiin ku soo dhawo channelka Scratch-ka aan ku dhahay walaal su'aal tijaabo oo dhanka arrimaha bulshada dadweynaha magaalada Barcaan weydiinay waxay tahay koranaysaa ma jirtaa qof aad horey isu jeclaydeen laakiin iminka aad kala tagteen soo way jirtaa wuu jiraa qofkaas marka fariin ayaad halkan uga reebaysaa qofkaas fariintaad u diraysaa qofka maxay wallaahi dee fariintaan u diraa qofka waxay tahay dee dad badan magaalada ku nool yihiin dee iga badan baan leeyahay oo bahdeedii intaas marka fariinta saa u leedahay maxay dee dad badanoo keligeed magaalada kuma nooleen laakiin dad badan ku noolaayeen marka dadkii baad imika mid ugu filan waan helayaa bashir jamac bashir ku soo dhawo channelka Scratch-ka waan dhawahay walaal su'aal tijaabo oo dhanka arrimaha bulshada dadweynaha magaalada Barcaan weydiinay waxay ku oranaysaa ma jirtaa qof aad horey isu jeclaydeen tusaale imika aad kala tagteen su'aasha ku weydiinaa waxay tahay fariin baad halkan uga reebaysaa qofkaas fariin horta waan salaamayaa fariinta u reebaya taade wax kale marka wax kale may sababta waxa weeye salaan dee waa marka hore asalaamu calaykum waa weeye sunne marka labaadna waa faral markaa salaantaa wax ka qaalisan u dhaafo garan maayana wallah cabdikhaalq ibe cismaan cabdikhaalq ibe ku soo dhawo channelka Scratch-ka aad baan ugu soo dhaweey walaal mahadsan su'aal dadweynaha magaalada Barcaan weydiinay waxay ku oranaysaa ma jirtaa qof aad xiriir wada lahaydeen waqti oo imika aad kala tagtay haa way badan yihiin waa badan su'aasha markaan ku weydiinaa waxay tahay fariintaad halkan qofka ugu diraysaa maxay tahay tusaale qofkaan wada sheekaysan jirnay haa waxaan ugu tegayaa fariin ah cishada ahaataba calafkaaga waad heli taasana uga tegaya anu magan marka sababtaad heesta u dooratay maxay tahay waxaan u doortay calaf baan isku weynay soomaa calafkii aan isku weynay iyadu marba helaysaa anna marbaan helaya saasaan markaa heesta ugu dooro inaan u diro sidaa markaa cabdilaahi alfaarax walaa cabdilaahi ku soo dhawo channelka Scratch-ka wuu ku soo dhaweey walaa walaal su'aal dadweynaha magaalada Barcaan weydiinay waxay ku oranaysaa ma jirtaa qof aad beri xidhi wada lahaydeen laakiin imika aad kala tagteen su'aasha markaa tijaabada aan ku weydiinaa waxay tahay qofkaasaad halkan fariin uga reebaysaa tusaale inta u diraysaa maxay tahay marka walaal waxaan leeyahay qalbi laba qof ma wada qaadi karo walaal saasaan leeyahay sababtaad u leedahay maxay tahay walaal waxaan u leeyahay qof haddii isfahmi wadaan dee waa la siiyaa jaaniskiisa saasaan leeyahay marka qof uu ka raacay miya may annagaa iskaga furtay annagaa iskaga tegey sababtaad uga tagtay yaa isfahanlaan baan uga tegey maxamed faysal baa laydhaa maxaad faysal ku soo dhawo channelka Scratch-ka aan ku dhaweey walaal su'aal dadweynaha magaalada Barcaan weydiinay waxay ku oranaysaa ma jirtaa qof aad waqti is jeclaydeen ama xiriir ka wada dhaxeeyay oo aad imika kala maqan tihiin marka su'aasha aan ku weydiinaa waxay ku oranaysaa fariinta qofka aad halkan uga reebaysaa u diraysaa maxay tahay tusaale fariin u dir fariintan u diray waxa weeye jacaylkii aniga iyo kalgacal wad maadsantahay sababta fariinta ugu dirtay sababta fariinta ugu dira sababta fariinta ugu dira waxa weeye waan nacnay xishiin badhamaaday sidaas fariinta ugu dira abdi ducaale abdi ducaale ku soo dhawo channelka Scratch-ka
waa ku soo dhowahay gabadh baan beri su'aal tijaabaa oo dhanka arrimaha bulshada oo dadweynaha magaalada burcaan weydiinay waxay tahay koodnaysaa ma jirtaa qof beriya tusaale xiriir aad wada lahaydeen ama isjeclaydeen oo imika aad kala tagteen haa waa jiraa su-aashaan ku weydiinna waxay tahay farriin baad halkan uga reebsa qofka waa u diraya farriintan imika aan bilaabayaa farriin gabadh baan beris jeclay gabadhii baa dabeedna arkay gabadhii inay beenii sheegayso gabadhii baan maalintii dambe aan afar u tiriyey waxaan gabadhii baan waxay ku tiri wardadan beenis sheeginoo basarkooda la yaabo ballabaynu haynay haddii soo bixin weydo ballanka ka walacday boqolaal dumaroo baxsan baan helayaa bilan ay bareen waxay ti warbii waaye dhageyso hooyaday baa burcaaday bil dhanbay ku maqnay baabuurka cali leeya baradha ka sugayay waa laba baabuur magaalada ka shaqeeya beenu ku dhisi maayo kitaabkana ballaaran iyo bisaka ku dhaarso ballan baa la yar qaato markaas ka boqol markii ka boqol ba shubac baa la laqsiyay leeyin waanu ka badinay ninku waa bahal weyn oo bada weey cagagar boodad lama xariiqin oo boqol ku heli maayo imka bad qabtay banaankaaga ka joog ay ti berri maan diraya islaanti gaarikaaga iyo gaadar raiiska madayo gugiba way ku dhaafay galabtii maan garoonka ku salaamnaa assalaamu calaykum waa su'aalkaaga baahniye salaakaaga baahniye su'aashaada ka raac salaakaaga baahniye su'aashaada ka raac halkaas ugu dhamaa